حديث اليوم وحديث كمانتا. إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. waxaa laga wariyey abi hurayrata alla raalliha ka ahaadee waa cabduraxmaan ibnu sakhrine waxaan ka maqlay rasuulkii alle sala allahu calayhi waaalihi wasalama isaga oo leh waxaan idinka reebo ka fogaada wixii aan idin amrose ka sameeya intaad ka awoodaan dhabtii waxaa halaagay ama sababay halaaga kuwii idinka horreeyey keliya su'aal badnidooda iyo khilaafidda nebiyadii iyaga loo soo diray ay dhinac marayeen kana hor imaanayeene. waxaa isku raacay soo saaridda xadiidkan bukhaari iyo muslim. maxaa ka mid a faa'iidooyinka xadiidkan? kow, waajibnimada in laga go'o waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalama reebay. labo, waxa la reebay waxay noqon karaan xaaraan toos ah sida shirkiga, dilidda naf xaaraan ah, ribada, khamrada, xanta, dad isku dirdirka iyo wixii la mida. kuwan oo dhami waa waajib in qofku uu ka fogaado oo ka tago. waxay kale oo reebiddu noqon kartaa mid ay habboon tahay in laga fogaado oo karaaho ah, qofkii ka tagana laga ajarsiinayo. waxaase marba haddii nebigu sala allahu calayhi wasalama reebay mudnaanta leh in laga fogaado. saddex, wixii sharcigu reebay in dhammaantii laga tago oo laga fogaado ayaa waajib ah oo qofka qaangaarka ah uma bannaana in uu wax yarna ka sameeyo. qaangaarnimada da' ahaan ama calaamadaheeda oo qofku isku arko labadaba waa lagu gartaa. afar, marmar waxaa dhici karta in ka maarmi waa awgeed waa daruura waxa loo yaqaana wax la reebay loogu ogolaado qofka, sida in qofka oo gaajo ay dilayso aan wax kalena helaynu uu helo neef bakhtiyey hilibkiis oo markaas loo ogol yahay inuu nafta ku cesho inta uu wax xalaal ah ka helayo. laakiin waa in uusan wax kale helayn, shaygaas xaaraanta ahina uu wixii lagu bannaystay qabanayo. daruurada lafteeduna waxay leedahay miisaan lagu cabiro ee wax kasta daruuro la iskagama magacaabi karo. shan, habboonaanta in marba sidii loo awoodo loo fuliyo wixii rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu amray. waxaase jira qayb ka mid ah amarkaas oo ay waajib tahay in la sameeyo, qofkii samayn waayana loo ciqaabayo sida salaada, zakada iyo soonka iyo wixii la mid a. laakiin waa in uu u sameeyo sida uu u awoodo ee dhabta qofkaas ku ah. waxaa kaloo ka mid ah qayb ajar lagu siinayo qofkii sameeya, kii ka tagana aan lagu ciqaabayn oo lagu magacaabo almustaxab. lix, amarka sharciga in uu qofku amar ahaan u aaminsan yahay ayaa laga rabaa, oo waa khatar haddii uu uga tago xaqirid uu xaqirayo ama nicid uu nacayo ama marmasiyo kaleba. laakiin haddii uu ku dhacay in uu amarkaas khilaafay waxaa laga rabaa in uu caddaysto
oo uu bayaansado inuu ku dhacay waajib inuu ka toobadkeeno laga rabo iyo inuu mubaax ajar badsi u keeni lahaa oo uu dhunshay uu shaygaasi yahay. 7 waa waajib adeecidda nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo u hoggaansamidda amarkiisu. muslimkana uma banaana inuu shaki geliyo ama raadiyo qaab uu uga fakan karo haduuba si xaqiiqo ah u ogaaday inuu amarkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam shaygaasi yahay. 8 su'aal badnidu in ay ka mid tahay waxyaalaha ummadaha halaaga ayaa xadiidka laga qaadanaya. su'aalahaasna waxaa soo hoosgalaya su'aalaha dhiiranaanta iyo qodqodidda fog wata, kuwa aan baahina loo qabin faa'iidana laga helayn, kuwa cayaarta jees-jeeska iyo wixii la mida loo weydiiyo, kuwa ku saabsan wax aan dhicinba oo bal ka waran haddii sidaas iyo sidaasi dhacdo iyo wixii la mida ah. ardayda cilmiguse nooca waxbarasho iyo cilmi siyaadsi awgeed way u weydiin karaan culimada. su'aalidda waxyaalaha alle naga qariyay iyo sababta uu u qariyay, sida waqtiga qiyaamuhu dhacayo iyo sababta alle u qadaray waxa uu qadaray, waxyaalaha qaybiyaadka ah iyo wixii la mid ah. 9 dhib ma leh in qofku waxa khuseeya ee uu cilmiga uga baahan yahay si uu ugu camal falo u weydiiyo culumada, waana la iska rabaaba oo in uusan baran ama weydiin culumada ayaa laga yaabaa in uu ciqaab ku muto oo aan jahli loogu cudurdaarin. 10 ilayska xadiidkani wuxuu ifinayaa in ka reebtoomidda waxa la iska reebay sahlan tahay kana fadli badan tahay qayb ka mid ah samaynta waxa la is amray. arrintaani waxay ka hortag u tahay dhibaatooyin badan oo dhici lahaa, waxayna sahlaysaa in wixii la is amray lala yimaado. tusaale ahaan, haddii dilka xaaraanta ah la iska daayo, waxaa la helayaa amni ay qof kasta ugu suurto gasho in uu si degan allihiis u caabudo una noolaado. 11 waxaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa samaaxada iyo sahlanaanta diintan ayaa waxaa ka mid ah in adeecidda awaamirta alle iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam lagu xiray xaalad awoodeedka qofka ee dhabta ah, sida xadiidkan iyo aayadda fattaqullaha mastata'tum iyo nusuus kaleba ay tusayaan. waxyaalaha la isku waajib yeelay ee iskaba yar ayaa iyaga xitaa loo samaynayaa marba qaabka loo awoodo. 12 xadiidku wuxuu ka digayaa khilaafka iyo raadkiisa khatarta ah ee uu reebo. ambiyada alle oo la khilaafa waa kitaabka alle iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la khilaafay, waana in lagu xushmayn waayo cidda cilmiga u leh oo looga dambayn waayo. khilaafku waa shar la inooga digay in badan oo nusuusta ka mid ah, badalkeedana la ina amray isu imaanshaha iyo wada jirka. 13 waxaa arrin muhiima ah oo laga dhadhansanaya xadiidka in waxa la isugu imaanayo ee wada jirka abuuraya ay yihiin xaqa iyo cidda wadda ee ambiyada iyo cidda booskoodii joogta ah waa culumada. 14 waxaa kala jira khilaaf xun oo aan la ogolayn iyo mid aan dhib lahayn. kan aan la ogolayni waa in muslimiintu isku khilaafto usuusha diinta iyo wax iimaanka la xiriira. qofkii ku dhacana waa loo cudurdaarayaa haddii ay jaahilnimo u fasirasho si kale waa ta'wiilka ama in aan xujaduba gaarin iyo wixii la mida ay qofkaas ka tahay, waxaana cudurdaarkaasi soconaya inta ciladaasi ay ka suulayso qofkaas. haddii kale waa khatar. culummadii hore ee diintuna aad bay noocan ula dagaalameen. nooca kale ee aan dhibta lahayni waa ku kala duwanaanshaha furuucda islaamka iyo fahamka naska lagala soo baxay ee nolol maalmeedka la xiriira, waase in aan fahamkaasi lid ku ahayn nas ay waxa uu ku tusayaa caddahay. waa nooca loo yaqaan as-sariix ama wax si cad oo la hubo ay culummadu isugu raaceen al-ijmaac. 15 qofku wuxuu leeyahay awood uu isagu maamulo sida aayadaha qaar iyo xadiidkanba ku cad, waxayna arrintaani burinaysaa caqiidada kuwa jabariyada ah ee diidan in qofku awood leeyahay. 16 waxaa xadiidku caddaynayaa in wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka yimaada ee amrid ama reebid ahi ay qayb shareecada ka mid ah tahay. qur'aanka ha ku jirto arrintaasi ama iyay ku jirin. fawaa'ida xadiidku ma yara, halkana laguma soo koobi karo. alla ha inaga yeelo kuwa dhab u rumaysan alle iyo rasuulkiisa, raacana jidka nabi muxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam. waa inoo xadiidka xiga, waxaanan idinkaga tegaynaa xifdiga alle iyo
إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين